الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. marka hore waan mahad celinayaa saxaafadda madaxa bannaan Jamhuuriyadda Soomaaliland halka isku timid marka labaad dhammaan shacabka reer Soomaaliland dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ee kala jooga daafaha dunyada ama dalka gudihiisa ama dibadiisaba waxaan ugu baaqaynaa in go'aanka xisbiga wadani isla qaatay ay tahay in berri haddii ilaahay yidhaahdo salaasada isniinta berri haddii ilaahay yidhaahdo mudaharaad silmiya anugu ka dhici doono dhammaan gobollada iyo degmooyinka iyo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysaba mudaharaadkaas oo aanu ku cabirayno dareenka xisbiga oo ah waanu ku diidanahay waanu kaga hor imanayno go'aankii komishanka doorashooyinka qaranka iyo saddex xisbi qaran iyo beesha caalamkuba isla qaateen aynu ku heshiinay ee la wada saxay xukuumadduna qaybta ka ahayd oo runtii ay doonayso ama ay rabaan qayb dad tiro yar oo guriga madaxtooyada ka soo baxa iyo in yaroo kooban oo golaha guurtida ka midii inay dhalan habaabiyaan oy joojiyaan geedi socodka doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqti fiican oo cayimanay saddex xisbi iyo international community-ga iyo beesha caalamka oo dhameystiran iyo dhammaan Soomaaliland baanu isla qaadanay oo in yaroo kooban doonayso inay ka weeciso wadadii saxda ahayd iyo koo dana gaar kale waxaan ugu baaqayaa golaha guurtida inta maskaxdoodu caafimaad qabto waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inta maskaxdoodu caafimaad qabto waxaan ugu baaqaynaa xisbiga maxaan ugu baaqaynaa shacabka reer Soomaaliland oo dhan inta caafimaad qabta ee doonaysa rabta in doorashooyinka Soomaaliland sidoodii u dhacaan in aanu berri ka dhigi doono mudaharaad silmiya dalka Soomaaliland oo meel kasta waxaanu faraynaa labada jananka booliiska iyo militariga inay mas'uul ka yihiin ilaalinta iyo dhowridda dadka isku soo baxay nabadgelyadooda taasoo ay taageerayaashu ama shacabka reer Soomaaliland inta ogol geedi socodka ee doorashooyinku inay dhacaanba ay soo bixi doonaan mudaharaadkaasuna uu noqon doono mid silmiya aanu ahayn kii taageerada la gubayay aanu ahayn kii wax la tuurayay aanu si silmiya u mari doono dariiqyada aanu ku cabiri doono shucuurtayda aanu ku diidanahay in doorashooyinka waqtigii la cayimay ay dib uga sii dhacaan taasoo ugu baaqayna taageerayaasha inay si nabadgelyo berri u soo bixi doonaan ciidamaduna ay ammaankooga iyo ku ilaaliyaan shacabku waxay taliyaha ciidanka iyo ciidamaduna ciidanku waa shacabka inay ilaaliyaan shacabka inay xabadi ku dhicin shacabka in la dhowro nabadgelyadooda waxaynu Soomaaliland baraynaa in iyadoo in xabadina dhicin aanu dagaalna dhicin dariiqyada si silmi aynu ku barno iyo dadku boorarkoogan ay wataan aadna wada maas